مسؤولين وزارة dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa maanta kala qayb galay ciyaarihii isreebreebka gobolada bariga Soomaaliland ee maalintii shalay ka furmay garoonka caalamiga Alamse Stadium ee magaalada Burco daqiiqado yar ka hor intii aanay ciyaaruhu bilaabmin ay warbaahinta la hadleen barasaabada gobolada Xaysimo iyo Baran iyo waliba tababarayaasha goboladaasi iyagoo dhamaantoodba sheegay inay guulo la taaban karo ka soo hoynayaan ciyaaraha isreebreebka gobolada bariga Soomaaliland tababaraha xulka gobolka Baran magaciisa la yiraahdo Macallin Abshir Ali Yusuf waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay ciyaartan qiimaha iyo qaayada oo aan galayno insha Allah anigu ku kalsoon baliyaradayda aaminsanna wixii aan baray inay soo bandhigi doonaan insha Allah guul baan rajaynayaa wabillahi tawfiiq bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin anigu oo ay suduwaha gobolka Baran insha Allah ciyaar friendly match waxaan la galeynaa gobolka Xaysimo insha Allah waxaan rajaynaynaa guul iyo wixii ciyaartooyga aanu soo barnay gobolka Xaysimo ka soo qayb galo taasoo rajaynayo inuu tababar dheer soo qaatay oo dardar iyo ciyaaraha fiican ka muujin doono ciyaaraha gobolada Soomaaliland waxaan rabnaa inaan kaalin fiican ka gaadhno aad baan ugu kalsoonahay ciyaartooyda inaanu ahaan doono wadarana ka muujin doono ciyaaraha sanadka aanu la qaadi doono insha Allah koobka aanu muddo badan sugnay koobka gobolada Soomaaliland anagoo gobol cusub oo hadeerna magacaabay waxaanu sugnay saan uga qayb galnay koobka Jamhuuriyadda Soomaaliland aan ugu ciyaar lahayn tartanka hore wareega hore gobolka Togdheer iyadoo Togdheer aad iyo aad noogu soo dhaweeyay si kalgacalnimo leh si hambaliyo leh waxaan ugu abaalgudnaa aanu garanayn ciyaarta maantana insha Allah taala waxaanu jecelahay aan afka ku hadlay gobolka Xaysimo ana tababaraha gobolka Xaysimo inaanu guuleysano guul baan leeyahay ugu dambeyntii wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Axmed Cabdi Kaahin oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri maanta socotay guud ahaan waa si nabadgelyo oo wanaagsan bay u socotaa sidii la arki jiray ciyaaruhu haday dhacayaana de waa jiirka u dhaca laakiin wax dhibaato oo halkan dhex taagan maanta ma jirto si fiican way socotaa dadku waa happy oo arkaysan garoonka si loo buuxiyay oo arkaysan si loo saxabatumayo wax jiiday iyo wax maartay meel kale ka yimid ma jirto labada gobolna si fiican qodbada iyo saadaal kadib waxa si rasmi ah u bilaabantay ciyaaraha u xiiso badan oo dhex martay gobolada Baran iyo Xaysimo taasoo qolada kala difaac iyo weerar ay ku haysay waxay socoto beer dhigaaleyn iyo difaac waxa gool aad u qurux badan la yimid daqiiqadii 35aad gobolka Xaysimo jawiga meesha isbedelay kadib waxa la galay qadar yar oo nasasho iyo talooyin waxa la isu soo laabtay afkii dambe ciyaarta iyadoo qolo waliba dardar cusub la timi daqiiqadii 25aad ee afkii dambe ay gool labaad la yimaadeen kooxda Xaysimo iyadoo ciyaartii ku soo dhamaatay 2 gool iyo eber oo ay guusha ku raacday gobolka Xaysimo oo barwaaqadan Maxamed shabakada caalamiga Wadweyne News magaalada Burco.